بسم الله الرحمن الرحيم waxaa saaka ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yeeray dhammaan hay'adaha amniga ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaanu laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada afkooda iyo xamar isku xirta ay gacanta ku hayaan dowladda walaalaha ee Turkiga ah sidii loo dhameystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaas waxa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadawga ummadda Soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo horumar lagu sameeyo wadooyin loo sameeyo nolol dadka loo abuuro jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidanna waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sareynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira booliiska militariga nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortagayaan lana shaqeynayaan dardargelinta wadadaas arrintaas ayaa aad looga hadlay loo filaanqeeyay waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiyiinta ah ee naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaarta wadada inay wadaan inay muxuu ahaa inaan ugu mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhameystirka wadadaas oo hadda gabagaba meel maraysa